hooyo Canab waxay ku nooleed gobolka Nugaal caasimadiisa Garowe waxaa haleelay buro kaga soo baxday dhuunta waliba kiiladeedu cuslaatay wax dabiib ah ma raadsan waayo waxay la hardamaysay nolol maalmeedka qoyska 6 sano oo xanuun darinahayay maalinta ka dambeysana xamiisaanka jirkeedu isdhimayo oo ayna awoodin aadista isbitaal waxa lagu qabto caafimaadkeeda waxay fariintaydu gaartay Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ka howlgalay isbitaalka Shaafi ee Muqdisho wuxuu raadiyay goob laga xiriiro Canab oo qofka dhibanaha ah uu helay muddo kooban telefoonkeeda wicitaan kadib wuxuu u sheegay in wax lacag uusan ka rabin qaliinkaasna uu sameynayo waliba si bilaash daawadeeda isbitaalka intii ku jirtaba diidma dheer kadib oo cabsi la xiriirta waxay ku qanacday hadalka Professor Shaafici Aadan Dirir oo ah imaanshaha isbitaalka Shaafi ee Muqdisho iyo qaliinka lagu sameynayo Jimcaha 15 bishan ayaa xamar timid sabti baaritaan lagu sameeyay isbitaalka Shaafi ee Muqdisho wuxuu dhaxalsiiyay qaliin qaatay 5 saac waxaana qaliinkaasi lagu sameeyay noqday mid guuleysay oo najaxa Canab waan kula kulmay qaybta saalada isbitaalka Shaafi shalay gabaldhaci xilli aan la gelin qaliinkeeda ayaan weydiiyay waxa ay dareemayso maadaama ay hor fadhido qaybta saalada isbitaalka Shaafi ee Muqdisho rajaadi aadan qaba boqolkiiba inaan adduunku dhaqdo Shaafici iyo dhaqaatiirta la shaqeeya qaliinka isbitaalka Shaafi ka waran waa umahad celinaya Professor Shaafici Aadan Dirir ayaa weydiiyay qaliinka nooca oo ahaa iyo waxa sida gaarka ugu kalifay raadinta bukaankan ku sugnaa Garowe isla markaana uu qaliinkaasi si bilaash ah ugu sameeyo waxaan ballan qaaday inaan gabadhaas wax kharashkii ku bixi lahaa ama qalitaan ha noqdo ama chief ha noqdo ama daawooyin ha noqdo inaan u sameeyo anaga wixii tabarucaad taakulayn ah dad islaam aan nahay diyaar baan u nahay dadka oo masaakiinta wixii la qaban karo inaan la qabano kale waxay ahayd mas'uuliyad saaran mas'uuliyad wadareed weeye annaga oo isbitaal private ah oo shaqaalaha lacag siina korontada lacag tahay guriyo kale yihiin wax walba yihiin saasoo tahay bil walba intaasoo qof يعني mana maahan sheegaysa maahan cidna lama wadaagno ma fahanti baan sameynaa ma fahanti marka dadkii baahan wixii tabarteeda ah isbitaal ahaan iyo shakhsi ahaanba waxaan qaban karno diyaar baan u nahay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah suuxyaha bukaankan ayaa qaybta baxnaanada ee isbitaalka kula booqday wuxuuna ii sharaxay xaaladda bukaankan ay ahayd sawirka aad aragteen ee aadka u weynaa oo meediyada dhan horey loo soo geliyay bay wadatay baaritaanadii markii la sameeyay waxay soo baxday inay qaliinka geli karto kana bixi karto waxyaabo waa jireen markii muujinayay inuu noqon karo qaliin aad u dhib badan يعني meesha ku yaalay weynaantiisa iyo suuxdinta iyo meelo badan angalis badan marka laga fiiriyo qaliin aad u dhib badan inuu noqdo waa la rajeynayay ilaahay fadligiis in lagu guuleysanayna waa la rajeynayay waana lagu guuleystay alxamdulillah xalay hal saac markii ahayd baanu galay waxaan ka soo baxnay kowdii iyo bar markii ahayd 7 saac bar sida loo yaqaan habeenimo markii ahayd maaha kaliya Canab dadka sida bilaashka ah loogu qabtay isbitaalka Shaafi waxa soo kale si kaliisa kula kulmay 5 kamid ah bukaanada qaliinka sida bilaashka loogu sameeyay isbitaalka Shaafi ee Muqdisho oo isla maanta arintaasi inuu ka soo qaaday Dr. Shaafici ayaa horay wadanka u keenay qalab wax lagu qalo kuwooda ugu casrisan ee laga isticmaalo dunida hore u martay waxaana sidoo kale isbitaalkan ka howlgala dhaqaatiir aqoon-yahan ah isla markaana takhasusada kala duwan ku leh qaybaha kala duwan ee caafimaadka iyadoo halka dhigay isbitaalkana uu yahay afkaaga hooyo wax ku sheego